markuu ku soo ataago oo sidan uu ku soo ataago ood ku akhrisid ood ku bilowdid waa gubanaya shaytaanka waa holcaya waa cararaya dubur joodinaya markuu dhaco guri ayad kursi lagu akhriyay ama suuratul baqara lagu akhriyay shaytaan bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan laysku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiif ah bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات كسر هذا برنامج شدي إنه سعودي كسب سنة كرشة عذر كاجو وجوش عافيمات كاجا ما أنتوا حربين عن قضب مهمة عن إنك فايديه أنت بدن وراه وحين سوي ديان رياضة مسك رياضة مسك هبين والبوحان أرجنا بيرادا مصنع عرسانية مصر يرتوستي ذي إيجلية مصمارك تاين nala socdo oo kale anagoo soconaa mas arkayna waxbaa nagu soo boodaya su-aalahaas oo dhan oo ku saabsan riyada maska madow ama masaska kale ayaa waxaan rabaa inaan fariin yar idinla wadaago fariintaasi runtii idin anfacaysa waa arrin idin anfacaysa qof kasta oo arrintaas sameeyo waa arrin garantii ah qofkii sameeyo arrintaas dhibaatadeeda masaskaas uu arkayo arrin uga badbaadayo weeyaan qofkii arrintaas sameeya wuu ka badbaadayaa shaydaankaas maska iska soo dhigaya habeen walba soo ataagaya haddii uu laazimo fariintan aan idiin sheegayo oo u sameeyo qofka tusaale gaaban intaanan fariinta idin siinin inta badan dadku waxay ku riyoodaan markay hurdaan haddii adkaarti ay hilmaamaan ama cudurkan sixirka ah ama shayaadiinta waxyaalaha la xiriira ay qofka hayaan wuxuu ku riyoonayaa isagoo iska jiifa maalan sidaan oo kale iskaga jiifa oo gurigiisa iska jiifa ayaa wuxuu ku riyoonayaa maskan kusoo boodaya sidan ugu soo boodaya qofkii wuu soo naxayaa markuu soo naxo oo qofku soo fariisto wadnaha wuxuu dhahaya wadnaha gariiraya hurdadii baa ka tegaysa hurdadii ayaa ka tegaysa qofka waagaa sidii ugu baryay isla markaas qofkii wuxuu dareemayaa xanuun madax xanuun fara badan caajis jajab maalinkaas ma shaqaysanayo idan marka jinkaas shaydaanka ah ee maska iska soo dhigay ujeedadiisu waxay ahayd inuu qofkan soo ataago cabsi geliyo maalinkaasi uusan shaqaysanin walwal iyo walbahaarna uu ku abuuro ujeedadiisu intaasay ahayd haddaba arrin tajribo ah oo la sameeyey in badan dadkii sameeyeyna ay ku guulaysteen baan rabaa inaad la wadaago sidan oo kale markuu kuu soo ataago sidii hadda aad arkaysay habeenkii ama maalin baa ahaa سدق وآخر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كل علي إلا تضغط كارسي haddii aad ku sii darto intaad kacdo laba ragcadood sunna aad tukatid khalaas arki maysid saamayntii uu kugu yeeshay ee ahayd weerarkiisan uu ku soo weeraray waxaa ka dhalan lahaa madax xanuun fara badan burbur shaqadii wadan maalinkii aadan qabsanin meeshii ay ka dhalan lahayd marka sidaas samaysid isku arki maysid way kaa zuulayaan idinka ilaahay khalaas halkii bay kaaga harayaan waxaad dareemaysaa hurdo
وهدوء قوانا الساعة كاتكتي والربيع إنه كاتكسيه وقوة إيمان الساعة تجربة قصة أرنتها تجابية ضد ضمن تجابية وليستين ورددي هرتوا هذه الساعة الحمد لله كو dhibaatadii uu kugu samayn lahaa maalinkaas shaqadaada iyo arrimahaaga saameynta ku yeelan lahaana waad ka badbaadaysaa aayatul kursi walaalayaal suuratul aayatul kursi walahaa sha'nun cadiim waxay leedahay arrimo u gaar ah oo aada u waaweyn النبي صلى الله عليه وسلم وحوين إليها بأنها أفضل آية في كتاب الله وآيات وفضل قبضا كتاب إله سبحانه وتعالى إذا مرك آية الكرسي إلا ذا سو كلام مرك الدرنتي الشيطان كمركوس كسوء أتاغو أو سيدن وكسوء أتاغو أو تكو أخسدو تكو بلودي فأقوانا يا شيطان وحل عيال وعررية ودبر جودينية ما كور دعوه كوري آية كرسي لو أخري أما سورة البقرة لو أخري شيطان نوسو دوان شيطان رن نوسو كوسو دوان تا اعتقادي سو كوسو دوان ما لكن شك بدن أكو كتر شك بدن ayuu kugu shaydaanka laftiisa shaki badan kugu ridaya idan marka hadaad akhrisay hadaadan akhrin sometimes maadaama shaki kugu jiro waxay leedahay dhibaatada leedahay waxa loo baahay marka shaki oo dhan inaad meel iska dhigtid ciladaas oo kale marka isku aragtid aayatul kursi aad akhrisatid intaad ka gaari karto aad ka akhrisatid si degdeg ah aad baad mahadsantihiin صوص تجارية أرنت أيضا وأرن تجربة هذا الوجود لستي وأنا أرن إلهي سبحانه وتعالى وينوسو الدجي داونا الشيطان كان لسه دفاعه وكان تلك هو إلا لدع الشيطان دبرك اللوجه ويسوع آية الكرسي يا نقلير كشيطان كويا تا آيات حفظي ست وحويان آد برتد معنى هذا آد برتد كوب قرع الشيطان كمركز وحاضر هيستا هوك ودن بي نوكلير كأح الشيطان كالوقرع هيستا ومع الأسف تتبضنوا مسلمين وهو اللي بدد واوينه أيها انت بضن مركي مالان ونراهنو آية بالكرسي آخري ما أوذن من آخرية ما هو قرن أيام بقى وآية الكرسي وآية الكرسي وحرس حركي وكم مهم سلاوية وآية القرآن وفضلك بضنيد وأهن ربتي آدية آت الله رحمه هذا قفوين وآية الكرسي أنا أقول فاتح هذه أنسحي أقولي وهلا برتو قرآنك إلهي سبحانه وتعالى أنا هلا برتو هنا لو رقمه هلا يسكت دفاعه وهلا يسكت داوي إذن كإلهي وح إذن لبعض الميسان عندي أتسدس سميسان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلشوي بشارو warheede waa maxay bishaaradu soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex ilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Habol Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Habol Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweynay Al-Hilaal Habol Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kili xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Habol Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh